deegaanka Soomaalida ayaa ka mid ah deegaamada ugu hooseeya dhanka heer gobolka adeega layrka 24 saac dhawaan bay ahayd markii la soo gabagabeeyay mashaariic la hirgelinaha oo muddo dheer soo jiitamay kadibna xariga laga jaray sida dhagax buur iyo qarbi dahar waxaa shalay layrkii 24 saac la gaarsiiyay magaalooyinka Dhadhaama iyo magaalada Cabasho ee degmada Baabile ee gobolka Qaafaan ee dowlad deegaanka Soomaalida waxayna hadda shaqada saacad gelintu ku socotaa ilaa 8 tuulo oo u dhaxeeya Fiiq iyo Dhandhame waxaa toddobaadkan iyaguna layrka 24 saac helaya magaalada Abaaqoro iyo tuulooyinka ka agdhow sidoo kale waxay shaqada layrgelintu layrka 24 saac ka socotaa Rajanno Awaare Shilaabo Kudumbuur Sheegoosh Birqood iyo tuulooyinka u dhaxeeya waxaa daraasadii laga wadaa Dhagax Madow Wanaagado Lehelow Lasdankeere iyo dhammaan tuulooyinka ka agdhow xarumaha quwadda korontada 24 saac ee Fiiq Goday Dhagax Buur Qarbi Dahar Raytu Jigjiga iyo Aragala ayaa qorshaysan in la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka u jira ilaa 120 kiiloomitir taasoo ka xukuumad ahaan xooga lagu saarayo in muddo gaaban gudahood deegaanka intiisa badan la gaarsiiyo layrka 24 saac wafdi heer sare oo ka socda xarunta dhexe xisbiga barwaaqo ayaa maanta la filayaa inay ka soo degaan gadiga diyaaradaha caalamiga ee Garaad Wiilwaal wafdigan oo ujeedada socdaalkoodu yahay qiimeynta hawlaha u diyaar garowga ka hortagga iyo xakamaynta faafitaanka cudurka coronavirus-ka ee qaybta bariga Itoobiya ayaa kulamo la qaadan doona gudiyada ka hortagga iyo xakamaynta caabuqa coronavirus-ka ee dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana booqan doona goobaha karantiilka iyo daweynta COVID-19 ee gudaha dowlad deegaanka sida jaamacadda Jigjiga oo ah goobta ay ku xareysan yihiin dad tiradoodu badan tahay oo ka soo laabtay Soomaaliya wafdigan ayaanu sidaan xog ku helayna sidoo kale booqan doona deegaanka Haraarida iyo maamulka magaalada Dirdaba qofkii ugu horeeyay bulshada caadiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee laga helay cudurka coronavirus-ka ayaa la xaqiijiyay laakiin aan si sharci ah loo shaacin nin oday ah oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Qaloocan ee degmada Galaadi ee gobolka Doolo 5 maalmood ka horna safar kaga soo laabtay magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya dhakhtarna u soo doontay isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Yabare ayaa baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday inuu hayo caabuqa coronavirus-ka bukaankan oo ay xaaladiisa caafimaad adag tahay ayaa lagu dabiibayaa xarunta daaweynta dadka uu haleelay cudurka COVID-19 ee magaalada Jigjiga waxaana dabagal lagu sameeyay gaarna loo soocay dad badan oo ka mid ah dadkii xiriirka dhow la sameeyay welina way socotaa dabagalkaasi kiiskan weli lama shaacin oo maanta ayaa lagu wadaa inay wasaaradda caafimaadka heer federaal shaacin doonto si bulshada xog qaldan loo dhaxwadin ugu dambeyn waxaa bulshada deegaanka lagu baaqayaa in ay ku dhaqmaan go'aamada iyo fariimaha xafiiska caafimaadka iyo xukuumadda u soo jeediyeen ee lagu yareynayo khatarta faafitaanka caabuqa coronavirus-ka Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku heshiiyeen inay la dagaalamaan wax alla wixii sharci darro ah isla markaana ay sugaan amniga dadka ku sugan aaga xuduudda maadaama ay soo gabagabeeyeen shirkii guddiga heerka sare ee siyaasadeed ee arrimaha xuduudaha kulankan ayaa lagu qabtay jawi wanaagsan iyo saaxiibtinimo oo ka turjumaya xiriirka fog ee ka dhaxeeya labada dal ee ku saleysan daris wanaagga iyo isfahamka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaas sheegtay kadib markii guddiga sare ee labada dhinac ay soo saareen bayaan wada jira bayaanka ayaa sidoo kale shaaca looga qaaday in dalalku ay ku heshiiyeen in la sii wado wada hadalka iyo in la abuuro jawi ku habboon xalinta arrimaha xuduudaha ee qaab dhismeedka jira iyo iyada oo lagu saleynayo dokumentiga la isku raacay oo la saxiixay iyagoo ka warqaba xaaladda hadda ka jirta xuduudda labada dal kulanku waxaa la isku raacay in la xoojiyo iskaashiga iyo la dagaalanka wixii dhaqdhaqaaq sharci darro ah iyo in la xaqiijiyo amniga dadka ku teedsan xuduudda isla markaana la xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya dadka labada dhinac qoraalka wadajirka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay ku yeeshaan shirka xiga ee dabagalka siyaasadeed magaalada Khartoum dhamaadka bisha Juun 2020 wafdiga Itoobiya waxaa hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dameeke Mokonnen iyo kan Suudaan oo hogaaminayay wasiirka arrimaha golaha wasiirada Cumar Bashiir Maanis kahor kulanka Cumar Bashiir wuxuu soo jeediyay fariin ka socota ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdallah Hamdok oo u soo diray ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha dowladda goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shir la qaatay ergooyinka beesha caalamka u qaabilsan Soomaaliya oo horeeyay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan
iyagoo isticmaalaya internetka. Shirka ayaa looga wada hadlay xaaladda Jubbaland, horumarka dhanka dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Jubbaland iyo doorashooyinka dalka ee soo aadan bilaha soo socda. Waxaa shirka ka soo qayb galay ergeyga Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga Martinez, safiirada wadamada UK, Norway, Sweden, Germany iyo safiirka Midowga Afrika ee Soomaaliya. waxaa muuqata in beesha caalamka si buuxda hadda la shaqeynayaan Axmed Madoobe, inkastoo dowladda federaalka ay weli diidan tahay inay aqoonsato doorashada Jubbaland ee lagu doortay Axmed Madoobe. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay inuu taageerayo baaqa caalamka ah in la sameeyo baaritaan saynis ah oo madax bannaan oo ku saabsan asalka cudurka coronavirus. hase yeeshee wuxuu shuruud uga dhigay in marka hore laga wada shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurka. madaxweynaha ayaa hadal ka jeediyay shirka sanadlaha ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo qabsoomay maalinta Isniintii. ilaa 100 wadan oo caalamka ah ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo asalka halka uu ka yimid cudurka. madaxweynuhu ayaa difaacay habka wadankiisa u maareeyay faafitaanka cudurka, waxaana sheegay in si daacad ah ay uga warbixiyeen khatarta cudurka iyo faafitaankiisa. Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa gadaal ka riixaysa in Shiinaha dhabarka loo saaro inuu mas'uul ka yahay coronavirus, isla markaana waxay ku baaqayaan in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo asalka cudurka. fayraska COVID-19 ayaa ka soo shaacabaxay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December, waxaana uu dilay dad ka badan 300,000 oo qof ayaa u dhintay cudurka, waxaana saameeyay dad ka badan 4 milyan oo qof.